cunteen barnaamijkan oo aan jeclahay aniga xataa inaad qayb ka qaato wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed marka soo bal soo dhow mar kale caaw waxaynu rabnaa inaan dul istaagno oo ka sheekayno tramadol iyo sidoo kale taabuu wax la bal soo dhow maxay yihiin marka hore waxaan aad u maasan tahay Suudani waa dhalintii hadda waxay u badatay in ay muqaddaraadkii iyo magaalada waxay ku hayaan farabaan ku hayaan marka labadan waa laba isa saaran oo inta badan ay isticmaalaan dhalinta marka taabugana waa asagana waa option gooni ah iyo taabugan iyo tramadolka iyo taabuga markaan kala qaadno taabugu waa tubaako caadi ah oo farsameysan oo warshaysan oo waa la soo habeeyo ilaa iyo heer waxa waaye dibad laga keenay oo business laga dhigtay iyo tramadolka oo ah daawo labadaas oo kala qaadana marka midna oo kala faaqayn doona insha Allah marka tay kormarina waxaan ka hormarina taabuga ka hormarina taabuga waa tubaako farsameysan sida hore u sheegnaba marka anaga tubaakada waxaan u naqaanay mid oo sigaarka ah iyo mid kale caadi ah laakiin tan way ka duwan tahay oo asa business loo keenay sanadihii hadda ugu dambeeyayna aad loo keenaa oo ganacsigeeda marka 16 17 way u dambeeyay laakiin sanadkan hadda ugu dambeeyay aad loo isticmaalaya ilaa laga arko marka ayagoo dadka isticmaalayna faraha bateen dadkii businesskana aad u keenaya business ahaan marka taabuga haddaad maqasho dadka su'aasha badan ku weydiinaya waxay tahay maxay tahay taabu dadna already waa yaqaanaanba marka taabuga waa tubaako bacaysan oo habeesan oo ka tayo weyn tubaakadii hore marka dadkii isticmaali jiray sigaarka ay inta badan waxa arkaysa 50% inay iska dhaafeen ay isticmaalaan taabuga waa gartay oo dad waaweyn xataa u isticmaalaan sababtoo ah sigaarkan dab uu raadinaya qiiq iyo waxbuu raadinaya laakiin kan uu ka duwan yahay uu diyaarsan yahay sidoo isticmaalaya inta badan waxay u fududeysay laakiin ka quality ahaan ayaga markaad wareysatid aad ugu yeelatid way ka quality badan tahay sigaarka kaleeto tusaale kaleeto markii aad halkaas xabba taabuga isticmaashid waxay u dhigmataa kale 4 xab 5 xab sigaar oo cunaayo marka wayna ka fududay saasi u isticmaalaan inta badan oo keenaysa inay isticmaalaan bulshada حتى دكتور مركي لقى دنكا ماركتي دقالة ويكر دقالة بدنتا هاي سيجارك شخصيات كيبيو قف كميده قلبت ولشيت يدرت دوتي جوب وكيبيو waxa uu sheegay in bacda wuxuu dhowr xabba ku jirto halka baco seejalaysan xabad kamid ah oo hal mar la saarana $1 iyo $1 iyo bar la iibiyo in baakad sportskana waxa suurtagal ah in $1 iyo ka badan ay $1 wax soo harayaanba qofkii markuu ku iibsado marka taas waa quality sheegaya halkaas ay dabcan ka muuqataa sida u kala qaalisan yihiin bal side effect-geeda iyo dhibaatada ay leedahay taabugan muxuu yahay horta dhibaato badan uu leeyahay isticmaalkiisa mar haddii loo yiraahdo waxa ka quality badan asin uu ka dhibaatada ka dhibaatada marka inta badan dadka muddo isticmaalo kaleeto problemo badan ay la kulmaan si fiican laakiin inkastoo ay dareemin sidoo balwad mugo qofka isticmaalaya intuu balwad isticmaalaya waxa uu arkay in xanuun hayo waxna uu arkay in balwadi bixiya jirkiisa laakiin mar haddii uu isku dayo inuu dhaafo ama ay noqoto gap soo galo ama markuu xanuunsado dhaafaya soo sax marka taas ay keenaysa inuu qofka xanuuno badan la kulmo marka side effect-geeda ugu badan taabuga marka ka hadlayno way fara badan yihiin si fiican waxa kamid ah in qofkii uu keeno dhawaaq maskaxda uu fahmo kale si qof agtiisa motorka shidan kale iyo warwareer oo keenaya waxa kale kamid ah qofkii inuu warwareero difaaciisa jirkeena oo dhumo in waxa kale aad ugu sii daran waxay tahay habdhiska dheefshiidka qalqala gala oo san raashin qaadanaynin ba oo san u baahan qofka cafaa 24/7 inuu waxa la 24 hours inuu hal mar wax qaato kala raashin qaato marka cuniyari inay imaato garaaca wadnaha oo kala soo saaydo dhibaatooyin badan leeyin oo halkan lagu soo hard speed imaana marka waxaan ku soo koobayna inta badan qofkii wareer iyo keeno labo iyo wareer keeno waxa kale oo ugu daran aad
ugu daran waxay tahay markii la yiraahdo hurdada xaggeeda qofkii online oo ahana ma jiifanayo ma hurdayo hay dareenkaas taas u sahlaysa dhananta inta badan isticmaasha dadka darawaliinta kaxeeya bajaaj oo kala kamid ah 24 saac way laamaysi ku jiraan ma hurdayo dan hadduu mar jiftan hurdo badan way keenaysaa hadduu seexdana waqti badan hurdaa okay marka taasaa keenaysa inuu qof dad badan oo doctor waxaa jiraan daawanaya ama dhageysanaya ee waalidiin iyo iskugu jira dad wax garanaya oo laga yaabo inay ku jahawareersan yihiin cunugooda ama caruurtooda ama awlaadooda qaabka uu dhaqmayo dhaqamadiisa bal qofka oo leh balwadaas ah taabuuga dabeecadiisa dhaqankiisa calaamadaha lagu dareemi karo okay calaamadaha lagu dareemi karo waxaa kamid ah qofkii oo raashinkii ka go'o okay qofkii oo physical ahaan muuqaal ahaan qofkii oo isbedela muuqaalkiisa loss of waxa ku dhacaya iyo god galaan oo qofku imaado iyo qofkii oo dabeecad uusan lahayn la imaanayo dabeecadiisa soo xumaanaya iyo aniga gar loo kaleeto oo mar walba isqabsanba asiga inuu ka gar leeyahay amisan oo kaleeto marka dabeecada aad ay u badan yihiin iyo qofkii hurdalaan ku dhacdo ilan waalidka uu dareemi karo qofkiisa canugoo dhalay iyo xilligoo jiifanayo xilliga kaleeto raashin cunistiisa iyo intaasaa inta badan lagu dareemi karo qofka leh waxaan kaloo ku daraa isticmaalka markii la yidhaahdo oo dhalinta rag iyo dumar ma kala saarno dadka qaar waxay aaminsan yihiin dhalinyarta ragga bis isticmaalaan sax sometimes waxaa jira dumarka qaar isticmaala laakiin ay ka tira badan yihiin ragga wax walba majority ladies minority marka inta badan waxaa ragga isticmaalo dumarkana ayagana way laamayaan way wada isticmaalaan inta badan way isticmaalaan ayagana marka dhalinta meeshaas ka wada qaataan cabdinaasir oo jooga Madiina haya cabdinaasir doctor waxaan weydiinayaa cudurrada oo macnaha xanuunka muxuu ku hadlayaa taabuugii muxuu hadlayaa macnaha waxaan ka hadlaynaa taabuuga ayaan taabuuga bahasha la yiraahdo oo tubaakada qayb kamid oo la isticmaalo iyo cirbadii tramadolka ahayd oo si qaldan loo isticmaalo ayaan ka hadlaynaa meelahaas wixii su-aalo ku qoto ayaad weydiin kartaa doctor iyo taabuuga iyo tramadolka waa darooga kamid hay ilaa yorta lama baro anada ma cuno lama isticmaalo laakiin dad badan oo in badan oo dhigano cunaan waa aqaanaa waana kala taliyaa mar walba marka waxaan ku weydiin taabuuga cudurrada uu keeni karo aysiga waxaan ka rabaa siifadoo kale cudurrada keeni kara siifeeg iigu celi su-aasha siifada cudurrada keeni karta iyo tubaakada oo iyo sigaarkoo kale cudurrada maxaa keeni kara sii la baro waa mahadsan tahay waa ku hordhigaya dhaktarka su-aashaada la soco barnaamijka insha allah doctor haddii aad maqlaysay bal soo dhawow waa dhawahay laba su-aal oo na weydiiyey dhegeystaas oo cabdinaasir noogu sheegay magaciisa shiishada iyo wuxuu na weydiiyey taabu marka labada oo kala qaadaynaa markii la yidhahdo shiishada isku saameyn maaha inkastoo weli darays isla yihiin markii la yidhaahdo shiishada habdhiska neefsashada ayay waxyeeleysaa ilan baashi jiitaankeeda hawo la jiiday waa la jiidaya marka inta badan meeshas waa laakiin midda kaleeto oo taabuuga ah waxaa ka dhalan kara waxay tahay kansar kansarka mindhicirada oo kaleeto iyo afka kansarka ku dhaca ayaa laga carabka gogo-o taas ayaa laga dhaxlaa iyadana laasim waxaa leeyahay meesha uu ku dhacay qofkii isticmaali jiray fahashaas meesha uu saari jiray laasim waa go-eysaa way go-eysaa kansara isbedeleysaa inay meeshii madoobaato maal soo gasho markii dambena ay noqoto kansar ay noqoto afka in laga jiro qof afka laga jarna marka ma taalo ma jirto meeshaas cudurrada markay u kala duwan yihiin bahashaan la dhuuqayo waxay saameyneysaa sanbabadii iyo wadnaha iyo halkaas qalqal gelinaysa tanna afkii maaragtay ay dhibaateynaysaa okay bahashaan marka qofka marka uu saarto waa dheecaameysaa si degdeg ah waxay ula falgelaysaa jirki saasa waxay keenaysaa marka inay ka saameyn badato cadayska dhiiga oo aada u suman xataa sometimes waxaa dhici karta inuu maskaxda dhiig ku furo waayahay daawadayaasha kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaya ayaa maaragtay jaaniskooda siin doonaa waxay naga soo wixi karaan dhegeystayaasha daawadayaasha furaha 764 84 44 numberka ayaad naga soo garaaci kartaa oo aad barnaamijka uga qayb qaadan kartaa doctore
yaa ugu badan oo isticmaala marka markaan ka hadlayno taabuuga markaan ka hadlayno ragga iyo dumarka inta way isticmaalaan sax laakiin 30% oo kaleeto dumarka isticmaala sax laakiin 70% waxa isticmaala ragga isticmaala inta badan soo jeeda taas oo baaritaan dheer aan ku sameynay sababteeda iyo waxa keenay wad ogeed markii wadanka laga joojiyay qaadkii laga joojiyay ay bedelkeeda u galiyeen si dhalinyarta ay u isticmaalaan haddaan wadan qaadin waxba lahayn oo midaan diyaarsaas ahaan u isticmaalin inta badan ay taas ku tagtay oo keentay saameynta inay aad u isticmaalaan